qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka Jubbland ayaa waxa ay ka qayb galeen munaasabad lagu caleemo Sarey nabadoon cusub oo ka dhacday magaalada Kismaayo. Sabriye Xuseen Barre ayaa warkan eegaya. munaasabadan oo ahayd caana shubka nabadoon Rashid Nuur Xaaji Dhufe oo noqonaya nabadoonka mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ee deegaanada Jubbland ayaa waxa ka qayb galay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka Jubbland qaybaha kala duwan ee bulshada Kismaayo iyo marti sharaf kale isimo ugaasyo salaadiin iyo cuqaal magac iyo maamuus ku leh bulshada Jubbland oo munaasabada hadalla ka jeediyay ayaa nabadoonka cusub Allah uga baryay in uu u fududeeyo hawsha culus ee maanta loogu caana shubay. mahad celin kadib aniga ugaas Axmed Siraad Xuseen Boqow anigoo ah waxaan aad iyo aad aan ugu faraxsanahay maanta in la keeno nin aan garanayo aabihii aan garanayo awowgii aan garanayo awowgii aan kala aan garanayo ilaa 5 fac 6 fac aan u garanayo aad iyo aad baan u faraxsanahay maanta in reerka nabadoon oo uu keenay ebilna iyaga nabadoon oo ay soo jireen bay ahayeen dad hadda la keenay maaha reer Xaaji Dhufe dad la yaqaano oo waama magac ku leh oo dadka deegaanka waama laga yaqaano bay ahayeen waxaan nasiib u yeeshay maanta inaan anigoo Axmed Siraad la shaqeeyo Rashid oo maanta la keena nasiib aad iyo aad badan baan u leeyahay maxaa yeelay awowgiis iyo awowgay aabahay iyo aabihiis awowgii kale awowgay rag badan baa soo wada shaqeyn jiray وسلامنا مجلس كسرفتله قدنا نو سميي iyo tolka isugu yimid waa salaamayna waxaan salaamayna hadana mar labaad yaani reerka qadada noo sameeyay si kasta Allah ka dhige ilaahay waxaan ka baryaynaa nabadoonka cusub ee la doortay kii dadka anfaacin rabbi ka dhigo waxaan rajaynaynaa hawl weyn baa u taala hawsha in ilaahay u fududeeyo annaguna waa soo dhaweynaynaa intii tabara waxaanu leenahay ilaahay ha kugu barwaaqeeyo reerkaaga wixii ka dhiman rabbi ha ku asturo intaasaan anagu leenahay waxaan u mahadnaqaynaa tolkiina marti qaaday oo halkan oo nabadoonka doortay oo nahor keenay waa mahadsantihiin qadadii iyo khayrkaad noo samayseen ninka la doortay oo ah Rashid Nuur Xaaji Dhufe waa aqbala odayaashii harti haddaanu nahay waa qaadnay waa aqbalay waa reerkii gudoonka idin hayn jiray oo aanu naqaan haddaanan ku ogeyn oo aan si kale ka baqayno ma sida ma noqoteen nabadoon Rashid Nuur Xaaji Dhufe ayaa munaasabada ka sheegay in uu si daacad ah ugu shaqayn doono bulshada uu hoggaanka dhaqanka u qabtay nabadoonkii shanaad oo horta la doortay waa aniga maanta idin hor fadhiya waa Rashid Nuur Xaaji Faarax marka hore waxaan idinka codsanayaa xil culus baa la isaaray xilkaas culus oo la isaaray in uu ilaahay ii fududeeyo aaminta inaad igu xoojisaan anigana hadda waxaan ahay nin hadda maaragtay garabkiina soo istaagay insha Allah laakiin waxaan ku dardaarmaynaa dad muslim baynu nahay awalan inaynu ku dadaalno diinta sida ilaahay subhanahu wa ta'ala uu leeyahay yaa ayyuhalladina aamanu taqullah حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن أينو إسلامي ماذا كد دالنا waxa aynu ku dhaqmaynana ay noqoto shariicada islaamka xukun hadaynu iskugu iimaanayno awalan waxa aan ku soo rubarno aynu ka dhigno kitaabkeena munazalka sida ilaahay quraankiisa ku yiri fa in tanaza'tum fi shay'in furuddu ila Allah hadii shay aad isku qabataan xaq ilaahay oo celiya annaka waa naloo yeeray beesha Cumar Maxamuud baa noo yeertay odayaasheeda noo yeeray madaxweyntii Cumar Maxamuudna way fadhidaa madaxweyntii Cumar Maxamuud way fadhidaa Abdullaahi waa joogaa ilaahay magantiisa Abdullaahi kale waa joogaa waxaa jooga ninka la yiraahdo jidgooyaa jooga odayaasha Cumar Maxamuud badidooda iyo maskaxdooda iyo waa aragnaa iyaga noo yeeray wixii ay noo keeneen waxa weey nabadoonka la muumbe walaalkiis ninka la yiraahdo oo fuubay noo keeneen waana naqaan aabiisa ahaan jira awowgiisa ahaan jira adeerkiisa ahaan jira waxa weey ninkaas waa qaabil farasubaglan ku soo dhaweynayna gacmo furan baan ku qabanaynaa wuxuu nooga baahdaan la qabanaynaa
walaalnimaan ku soo dhaweynayna wixii oo isaga ka fariisa ka baxana waa uu noola imaanay annagana waa soo dhaweynaa tan Umar Maxamuud walaalayn way waxay inooga maarmi waayeen iyaga noola imaanayo waxbaan kala qabanayna nin reerkiisa looga shaqeeyay ma jiro reerka iyaga shaqul kule Umar Maxamuud reerkaas wixii oo gafoorka taagay iyo wixii oo bahalkiisa iyaga soo xalinaya wixii xalin waayaan waa noola imaanay wassalaamu calaykum waraxmatullaah دارنا رياض هذا كان يوافق بدي أنت صار تشوفه يا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. madax soo jireeno jidka diin islaamkiyo dhaqan dadka ugu jihaysiyo ummada iswada jecel jaliilkiina siiyo Jubbland barwaaqe madax soo jireeno jidka diin islaamkiyo dhaqan dadka ugu jihaysiyo ummada iswada jecel jaliilkiina siiyo Jubbland barwaaqe Jubbland lahayo jeehanaba galyahiyo kadhigta barwaaqa jaliilo wallahayo badda jamalabediyo wabikaynta jiriyo Jubbland lahayo jeehanaba galyahiyo kadhigta barwaaqa bachadiyo beeraho la jariyo noolaho la jecel yahay دارنا رياض هذا كان يوافق بدي أنت صار تشوفه يا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. madax soo jireeno jidka diin islaamkiyo dhaqan dadka ugu jihaysiyo ummada iswada jecel jaliilkiina siiyo Jubbland barwaaqe madax soo jireeno jidka diin islaamkiyo dhaqan dadka ugu jihaysiyo ummada iswada jecel jaliilkiina siiyo Jubbland barwaaqe wabikaynta jiriyo Jubbland lahayo jeehanaba galyahiyo kadhigta barwaaqa jaliilo wallahayo badda jamalabediyo wabikaynta jiriyo Jubbland lahayo jeehanaba galyahiyo kadhigta barwaaqa bachadiyo
la jariyo xoolahoo la jecel yahay. sabriya Soomaali warbaahinta Jubbland magaalada Kismaayo.